marka koowaad Ilaahay ma iskale subxaanahu wa ta'ala noo soo golaaday caaway inaan isugu nimaadno madashan quruxda badan inteena inagu caafimaad qabna marka xiga waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan quruxda iyo qiimaha badan ee ugu horeeyaan bahda jaamacadda Sitikood aan ugu horeeyo gudoomiye Cabdixakiin martida kale oo ka soo qayb gashay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Bari Maxamed Dalmar oo runtii ka tilmaaman madaxda kale oo aan soran karo waa hogaamiyaha waqtiga ugu badan xafladaha jooga oo ugu dulqaadka badan xildhibaan golaha deegaanka gudoomiyaha dugsiga sare Najax Yaasiin Cabdiwaaxid Maxamed Dhahar gudoomiyaha dugsiga sare Ugaas Yaasiin bahda jaamacadda ardayda qaybaheeda kala duwan rag iyo dumarba musharaxiinta bahda saxaafadda gudoomiyihii hore ururka ardayda jaamacadda Sitikood ahna qora dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaan kadib waqtiga kooban farxad weyn ayay noo tahay caaway doorashadan aadka u quruxda badan inaan ka soo qayb galno oo marxaanti ka noqono xaqiiqdii waxay ahayd doorasho runtii xamaasad oo lagu kala calaf qaaday inta ka gadaal waxaan rabaa inaan u hambaliyo gudoomiyaha la doortay oo aan gudoomiyaha hambaliyo gudoomiyaha musharaxa kale laga guuleystana waxaan leeyahay lagama guuleysana waa lagu guuleystay runtii deegar laba nin kama wada qosliso mar walba nin un baa guuleysan lahaa in la wada shaqeeyo oo target la gaaro oo la isku duubnaado ayaa muhiima runtii jaamacadda Sitikood waxaan uga mahad celinayaa oo waliba si gaar ah guddiga doorashada oo saaxiibaday badan ay ka mid yihiin Salmaan Ogo gudoomiye Isxaaq diinka hidaarka waxaan leeyahay mariniska dhamaantood runtii barnaamijka sidaan ugu quruxda badan oo cadaaladda ku dheehan tahay inay soo nidaamyaan uga mahad celinaya waa wax runtii jaamacadaha kale kaga duwan tahay doorasho aad u qurux badan waqtigeeda ku dhacda munaasaba si dhow waa ula shaqeyn doonaa anagu jaamacadda horena waa wada shaqeynayna haddii la yiraahdo